qulqulatooyin sababay dhimashada 65 qof oo Soomaali ah ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ka tirsan ismaamulka Oromada ee dalka Itoobiya. Deegaanka ay wax ka dhaceen ayaa waxa lagu magacaabaa Daara Labo, waxaana ay ka tirsan tahay degmada Baali ee gobolka Jiro oo ka tirsan ismaamulka Oromada dalka Itoobiya. Dadkaasi Soomaalida ah ayaa waxa la sheegay inay ku sugnaayeen xirooyin ciidamada boolisku halkaasi ay ku leeyihiin oo ammaankooda lagu ilaalinayay, balse waxa halkaasi ugu galay dad ku hubaysan faashash iyo mashooyinka beeraha, halkaasina ku dira 65 qof oo Soomaali ah oo magangalyo halkaasi ugu jiray. madaxa xafiiska arrimaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Idris Ismaaciil oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in dadkaasi markii la laayay kadib god lagu riday. mid ka mid ah odayaasha Soomaalida ee ku sugan deegaanka Oromada oo diiday magaciisa in la sheego ayaa isagoo la hadlay laanta afka Soomaaliga idaacadda Mareykanka VOA waxa uu sheegay in tirada dhimashada ee dadka Soomaalida ah halkaasi lagu dilay ay ka badan tahay 100 ruux. dilalkaasi oo dhacay labadii maalmood ee ugu dambeeyay. adigu bilkudhawaad dadka meesha ku xirnaa 65 ruuxi dad la soo habeeyo ciidamada gobolka Leega aan joognaa Oromada ciidamada iyo dad dhalinyaro oo seefafiya mancha wata baarooti soo galay meel guri ay ku jireen oo guriga la xadra meesha ahayd dadkii mancha iyo waxa la galay seefafa si loo waday aniguna banko ka taaba baxaan soo ku jiray 65 ruux qoftaada ku dhinteen laakiin korba siyaasad bay ahayd ammaankiina lagu suuqayna inta laga yidhi balaa dhalinyaro waalanba meesha ka jirto ammaankiina lagu suuqayna inta laga yidhi meesha la isugu keenay 98 ruux baa wax dangoray iyo mantii waxa la yiraahdo iyaguna lagu laayo ilaa 300 guriga waa lagu gubay waa meel kale iyadoo agteeda meeshan oo ilaa eegada meedkii banaanka wareeyay ka kale eegada meedkoodii waa la qariyo boolhawdha lagu guray kuwana ilaa eega banaanku magan yahay meel saddexaad kale iyadoo maanta dagaalka tan aroortii shaqada ka dhacday ilaa 9 ruux oo ugaaskii wadanka ku jira ku dhimatay iyadoo intaan ma dadka dhintay maanta dad uu baabay dadmuuna harinay. dhanka kale waxa uu cabsi ka muujiyay saameynta ay ku yeelan karto noloshooda haddii uu sii socdo dilka Soomaalida ka dhanka ah ee ka socda gudaha ismaamulka Oromada. annaga waxaan noo qorshay haddii aan heli lahayn nabadgelyo noo hadhay ma jiro meeshan waa isirgoyn waan dabar goynayaa annaga iyo xoolaha annaga waa inaan meeshan laga raraan ku goyno haddii waxna xaaba aan helayno annagu sidaan ku goynay wax dawladda noo maqdo kale waa isirtay dadka annaga meesha jooga inaa la dabar gooyaa la doonayaa annaga waxaan noo qorshay haddii aan helayno dawladda reeri baan aragnay inaan meeshan laga annaga iyo xoolaha annaga laga sii qaadan doonayna annagu ilka shaqada damay dawladda geyso inaan meeshan laga sii qaadan doonayna annagu mas'uulina warfaafinta u qaabilsan ismaamulka Oromada ee dalka Itoobiya oo isna la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidanka gaarka ah ee booliiska Soomaalida Itoobiya loo yaqaan liyu police ay kolka hore dileen dhowr qof oo mid ka mid ah ciidamada ammaanka ismaamulka Oromada waxaana uu sheegay taasi inay sababtay dhimashada 14 ruux. dadkani Soomaalida ah ee lagu dilay gudaha ismaamulka Oromada ayaa lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa ku dhaxnoolaa deegaamada Oromada oo halkaasi ganacsiyo ku lahaa. wasiirka gaadiidka dawladda federaalka Itoobiya mudane Ahmed Shide oo la hadlay telefishinka Home Cable ayaa maruu ka hadlayay xiisada ka oogan Soomaalida iyo Oromada waxa uu sheegay in dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ay isku dayayso in arrintan ay ku xalliso hab dhaqan iyo mid siyaasadeed labadaba. qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ku nool waa shacab walaalo ah oo danamida ka wada dhaxayso dib u dhiska dalkana uu ka wada dhaxayo weeye dhibaatooyinkaas dhacay waa mid xalkeedii la wado siyaasadna waa loo xalin doonaa sharci ahaanna waa loo xalin doonaa isku xirka shacabka dariska labada deegaanna wax badan baa laga qaban doonaa marka dhibaatooyinkaas hadda ka hor dhacay inay dib dambe u soo dhicin baan rajaynaynaa wax qabad balaaran baa ayaa la sameyn doonaa. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Home Cable TV, Hargeysa.